geedi waa nin baadiye ku nool ah oo xoolo dhaqato ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu magaalada wuxuu u doontay adeeg. Markuu soo baxay wuxuu soo raacay waddo aad u dheer oo geynaysa magaalada u socday. Xilliga lagu jirana wuxuu ahaa guug, dhulkana wuxuu ahaa doog iyo barwaaqo. Codka shimbiruhuna kala nooc ayay ahaayeen oo maqalka dhagaha u roon. geedi intuu sii socday wuxuu ku raaxaysanayay nimcada Eebe iyo quruxda dhulka uu ku soo koray. Asigoo ka fikiraya magaalada uu u socdo iyo wuxuu ka soo gadan lahaa ayaa si kees ah meel 3 tilaabo u jirta ayuu ka arkay mas weyn oo jidka dhex yaala. hal mar ayuu wuxuu isku daray inuu istaago oo ushiisana la kala baxo. Maskii ayaa cod daciif ah ku yiri, warniyow haddaan dilanahay hay dhammaystirin. kadib geedi wuxuu ugu jawaabay, waan ku dilayaa maxaa yeelay Soomaali waxay ku maamaadaa maska madaxa laga dilaa. Maskii oo dhaawiciisii hor la taahaya ayaa yiri, anoo dhasheeda u qaraab doonaya ayaa dhaawacani soo gaaray. aan dhasheeda u shaqaystay niyahow nafta hay dhaafin. geedi oo ahaa nin aad u naxariis badan ayaa yiri, waan ka leexanayaaye adigina jidka dhinac uga leexo. Maskii oo isii daciifinaya ayaa yiri, warniyow haddaad asxaan ii samaynaysid isii qaad oo godkayga iyo carruurtayda igey aan agtoodii ku dhintay ama ku noolaanay. geedi ayaa yiri, sideen kugu qaadaa kiish aan kugu rido iyo gaadiid aan kugu qaado maba hayeen. Maskii cod hoos oo hin la socto ku yiri, niyahow waa naxariis badan tahay qoorta ayaad igu duubi kartaa si aad ii qaadid. geedi oo u naxariisanayo ilowsanna wuxuu qaadayo inuu mas yahay ayaa si tartiib ah naxariisna ku jirto ilaalinaya dhaawac dhabarkiisa qoortiisa ku duuduubay. in cabaar markay wada socdeen ayaa maskii iyo geedi iswareysteen. geedi ayaa su'aal weydiiyey maskii, maxaa dhabarka kaaga dhacay? maskii ayaa ugu jawaabay, niyahow habar meeshaana oo islahaa digaagad ka cun ayaa kal iga dhufatay dhabarka oo dhaawac ayaa iga soo gaaray. geedi ayaa cod shakli ku yiri, maxaa ku geed digaagad islaameed? maskii oo dhoola cadeynaya ayaa ugu jawaabay, anigu soo mas ma ihi. geedi ayaa shaki la aamusay. in cabaar ah markii ay sii socdeen markaas ayuu geedi ku yiri, waxaa la gaaray meeshii aad u socotay ee aan dhulka ku dejiyo. maskii ayaa ugu jawaabay, sidee ii dejinaysaa? soo ma ogid inaan dhaawac ahay, qarab la'aan igu soo dhacday, gaajo badan i hayso oo aan dhiig aan cabo u baahanahay. geedi ayaa ku jawaabay, yaa kadibna maskii wuxuu yiri, ma ogid miyaa in qoortaada uu maro halbowlaha weynayn dhiigga qaado, anigana aan leeyahay maciyo dhaadheer si sahla oo dhuuqi karo dhiiggaas. geedi ayaa yiri, nin yahow axsaan ayaan kuu falay ee khiyaanada waa maxay? maskii ayaa ugu jawaabay, bini aadan dhan wax asxaana nagama dhexeeyaan haddaanan nahay xayawaanada, waayo abaalkeenna ma gudaan. geedi ayaa ku jawaabay, axsaan waan u samaynaa xayawaanka ee aan u gardhigano xayawaankii jidka nooga hor yimaada. maskii ayaa ugu jawaabay, waan ogolahay. sidee u socdeen waxaa ka hor yimid dameer, kadibna waxay u dhigteen gartoodii. dameerkii ayaa ugu jawaabay, bini aadanku ixsaan ma leh, aniga ifiiri sidaa oo kacday. markaa xoogga lahaa bini aadanku way ugu shaqaysi jireen, markaa tabar yaraadayna waa inaceen wayn u soo buriyeen. bini aadanku ixsaan ma leh. maskii ayaa ugu jawaabay, waa runtiis. geedi ayaa ugu jawaabay maskii, aan xayawaan kale u tagno. sidee u socdeen waxaa ka hor yimid neef geel ah, kadibna waxay u gardhigteen gartoodii. neefka geela wuxuu ku jawaabay, bini aadamka isxaan ma leh, markay iga manaafacsadeen ayay soo budiyeen, mana ay dhaqdaan mana ay dadyeelaan, bal ifyada sidaa u ekaaday. geedi ayaa ku yiri markii dambe maskii, aan xayawaan kale u tagno. siday u soo socdeen waxay ku yimaadeen geed meel ku yaala, kadibna gartoodii ayay u dhigteen. geedkii ayaa ugu jawaabay, bilaadanku axsaan ma leh, waayo mirahaygii waa gurtaan mana ay waraabiyaan, laamahayga inta gooyaan ayay waxay ka dhigtaan dhuxul, kadibna dab ayay ugu shidaan. maskii ayaa geedi ku soo jeestay wuxuuna ku yiri, geedi waan kuu sheegay in bini aadanka abaal lahayn
maxaa kuu haray geedi ayaa ugu jawaabay maskii fursaddii ugu dambaysay isii kadib ayagoo sii socda ayaa waxaa ka hor yimid uurays kadibna gartoodii ayay u dhigteen uurayskii ayaa ku yidhi labadoodii maxaan ii dhexdhexaadiyaa waa isku dhigantihiin dhulka soo fadhiista kadibna saddexdoodu waxay hoos fadhiisteen geed hoostiis geedi ayaa ugu sheekeeyey uurayskii sheekadii dhex marta asiga iyo maska uurayskii ayaa ku jawaabay hadda waa kala fuqday soomaha hadda qofkas dhulka ayuu fadhiyaa hadda garta waxaan ku gooyay masiyo halkaa ka bax adigana geediyo naftaada baaso halkaa ka bax gartii meeshaasaa lagu gooyey nin walbana waddadiisoo ka baxay carruurey waxaan ka baranaynaa sheekadan in marnaba laga abaaldhicin nimcada eebina siiyey sida dhirta iyo xayawaanka tusaale geelka marka uu dukoobo iyo dameerka marka uu dukoobo inaan xanaaneyno dhirta markaan jirnana aan dib u abuurno